wuxuu caawiyay ilaa ay tuurtay furkii fakhriga oo ay noqotay inan qani ah wuxuu u maleynayay in ay jeceshahay mar dhowna ay isguursan doonaan ma rumaysan kartid wixii ay ku samaysay markii ay qaaday koobka quruxda haweenka ee dumarka caalamka loo qabto maalin ka mid ah maalmaha ayaa ninkan oo la yiraahdo Caasim waxa uu soo xaadiray bandhig dhar lagu xayeysiinayay waxa indhihiisa soo jiitay gabar aad u qurux badan gabadhaasi waxay ahayd gabadh dharka xayeysiisa magaceeduna ahaa Priyanka Chopra waxaana indhadaraandar ku riday quruxdeeda markii ay xafladii bandhigu dhamaatay Caasim waxa uu bilaabay in uu la sheekaysto oo ka soo agdhawaado waxa uuna ka codsaday inay ballamaan oo banaanka inta iskula baxaan soo sheekaystaan Priyanka waxa ay ka aqbashay codsigiisa maadaama uu ahaa jilaa Hindi ah oo aad caan uga ah wadankaasi iyadu se waxay ahayd gabar cagta saartay wadadii ay caanka ku noqon lahayd balse aysan cidina garanayn caanna aan ahayn xiriirkoodii waa uu siyaaday waxa ayna noqdeen saaxiibo caadi ah ugu dambeyn waxa uu daaha uga qaaday jacaylkiisa waxa uuna ka codsaday guur way ka aqbashay in uu soo doonan doono waana ay isku waafaqeen Caasim isagu waxa uu filayay inay jeceshahay si dhab ah dabcan way ka aqbashay guurka maadaama uu ahaa actor caan ah aadna loo yaqaano xiriir adagna la leh dadka sarsare ee dalkaasi Hindiya waxay doonaysay inay ka faa'iideysato awoodaha Caasim si ay ugu gaarto halka ay doonayso waxay ku riyoonaysay in ay mar uun caan noqoto sidoo kalena ay noqoto jilaayada ugu qanisan ama ugu lacagta badan ee shirkadda Bollywood si ay u xaqiijiso goolashaas ay dunida ka leedahay waa inay ka faa'iideysataa dareenka Caasim si ay u gaarto yoolasheeda waxay ku ciyaari jirtay jacaylkiisa si ay caanimadaasi u gaarto taas oo dhan waxa uu ka ahaa indhoole saaxiibadiis ayaa uga digi jiray oo oran jiray war inantani way ku qiyaamaysaa kuma jecla way kugu danaysanaysaa iska daa isaguna waa uu ka diidi jiray waxa uuna oran jiray waanu isku doonanahay mar dhowna waanu isguursan doonaa waxa uu u sheegi jiray in dareenka uu u hayo oo kale ay iyaduna siiso mar dhowna ay isguursan doonaan waxa uu u ballan qaaday iyada in wax walba oo ay doonayso uu sameyn doono wuxuu kale oo uu baray jilaayada ugu caansan iyo filim soo saarayaasha ugu caansan ee dalkaasi Hindiya taageerada uu sii darteed waxay ka dhaxashay inay samayso guulo waaweyn oo aysan xitaa weligeed ku riyoon waxa uu ka yeelay dhar xayeysiisada ugu caansan Hindiya ee caalamka oo dhan sanadii 2002 waxay ku guuleysatay Priyanka abaalmarinta haweeneyda ugu quruxda badan koonkan aynu ku noolnahay markaasina waxay noqotay mid ka caansan Caasim waliba si weyn uga sii caansan kadib guusheedii waxa isbedelay qaabkii ay ula dhaqmi jirtay Caasim awal hore iyada aad ula xiriiri jirtay mar walbana ka codsan jirtay inuu arin ka caawiyo ama u fududeeyo haddana waxa uu ku dhiban yahay in ay ka qabato taleefanka ama ay hal mar xitaa la hadasho waxay ugu marmarsiyoon jirtay inay aad u mashquulsan tahay kadib markii ay caan noqotay khilaafaad ayaa halkaas ka dhashay xiriirkoodiina waxa uu noqday mid diiq ah waxa uu noqday mid la dooda iyada maadaama ay si qallafsan ula dhaqmaysay isna uu lahaa sidaas uma qalmo Priyanka muranadaas dartood ayay Priyanka tiri haddii aadan iga joojin naftaba waan iska qaadayaa yacni way ka hartay ninkan jecel ee daba jooga maqalkiisa iyo muuqaalkiisana dib ayuu ku noqday mar ay iska tuuri gaartay daaqada gurigooda balse waxa badbaadiyay qoyskeedii waxa uu hubsaday in ay dhibsanayso in ay la noolaatana ay ka jeceshahay in ay dhimato wax kasta oo uu sameeyayna waxay ku ilowday si fudud waxayna sidoo kale uga tagtay si fudud isla sanadkii ay ku guuleysatay bilada 2002 ayay kansashay isku doonanaanshihii waxayna iska siibtay fargalkii muujinaya arrinkaas isla markaasna waxay heshay filimkii ugu horeeyay ee ay jisho magaciisuna ahaa Tamishan markan ayuu ogaaday Caasim in la khiyaameyn jiray uuna ku dhacay dabin wax jacayl ahna aan loo hayn kulankoodii ugu dambeeyay ayuu ugu sheegay inay ka qoomamayn doonto burburka ay ku samaysay wadnihiisa waxa uuna ugu ballan qaaday maalin inuu ku aarsan doono dadkana u cadeyn doono shakhsiyadda dhabta ah ee ay leedahay waxa uu isku dayay inuu ilaawo si uu ilaawo waxa uu guursaday haweeney kale uu ku fashilmay inuu ilaawo guurkiisina waa uu burburay way kala tageen xaaskiisii cusba waliba iyadoo u dhashay gabadh yar 12 sano kadib Caasim waxa uu isku bedelay filim soo saare isagoo awal ahaan jiray jilaa oo kaliya marka ayaa waxa ku soo dhacay fikrad cabqarinimo leh si uu uga aarsado Priyanka waxa uu go'aansaday inuu sameeyo film looga sheekaynayo sidoo uu caawiyay in ay ka soo bilowdo sagxadda hoose ilaa ay gaarto fikta sare ee guusha sidoo kalena filimka in lagu jilo sida ay dareenkiisa uga faa'iideysatay una khiyaantay si ay u gaarto heerka ay hadda joogto filimkani waxa uu gudbay in la duubo isagoo la soo dayn raba ayaa dadkii waxa kadiso ku noqotay Priyanka inay filimkan dacwad ka gudbisay waxay tiri
filimkani wuxuu ka sheekeynayaa noloshayda shakhsiga ah xaqna maahan ayadoon la iga idinsan in la soo daayo xukuumaddiina waxay joojisay filimkii weliba si degdeg ah markii hore Caasim waxa uu dareemay xanaaq balse arrin yar ayuu ka dhaxlay arrinkaas waxa uu ogaaday 14 sano oo uu ku taamayay argoosi in aysan sax ahayn loona baahan yahay in uu ku fakaro sidoo gabadhaas yarta ah ay u dhalay u xanaaneyn lahaa waxa uu go'aansaday ama go'aan uu ku gaaray inuu iska ilaawo baryaanka si abadiyan ah kuna dadaalo sidoo inantiisa mustaqbalkeeda uu u horumarin lahaa waan joojiyay soo saaritaanka filimkan wixii hore u dhacayna way dhaceen waxana waajib ah inaan ilowno oo aan horay u soo sheeko kastaahi waxa ay leedahay dulucda aanu sheekadan ka faa'iideysanayno ayaa ah qofka aad nolosha la wadaagayso ama aad doonayso inaad guursato inta aadan maal gelin inta aadan noloshaada iyo waqtigaaga aadan u hurin iska tijaabi marin tijaabooyin aad ku fiirinayso inuu adiga ku rabo iyo in waxa aad haysatid uu doonayo